waxaan ugu dhufatay abaar ba'an oo wali hadda ka hor aan arag baan ugu dhufatay marka waxa weeye wax biyaha ma haysana wax baadahana ma haysana xoolihiin waa naga baabeen naf ku nool baan hayn waxa abaaro ba'ani ay ku habsadeen gobolka Gedo iyo degmooyinka ka agdhow abaarahaasi marba heer ayay soo joogeen waxayse hadda marayaan in ay dadkii baaba'aan degmo kasta warar ka soo gaaraya waxa weeye 5 baa xagga ku dhimatay sorta waxaan noo sheegayaa inuu dad dhintay ilaa 5 qof geeridood baa la sheegayaa 2 xagga ku dhimatay 3 ayaa xagga ku dhimatay sida looga bartay shacabka Soomaaliyeed meel kasta oo ay adduunka ka joogaan markii la joogo waqtiga baahida waa la isu gurmada haddana waa waqtigeedii mu'asasada Al-rahmah ayaa waxa ay qaaday ololaheedii ugu horeeyay gargaar xooga oo dibadaha iyo wixii la mid ah laga soo gaarsiiyay in ay ku gaarsiiso meelaha qaarkood waxaan rabaa inaan sheegto dhibka yaala xoolihii waa dhumeen dadkuna waa ku daba xiga abaar 7 bilood ilaahdankiisa iyo baad midna aan helin baan hays waxaan rabnaa walaalahan nimanka la yiraaho Al-rahmah way mahadsan tahay biyaha ay noo shubtay iyo baad ka sugnaba waa ka rabnaa halkan UK waxa ay mu'asasada Al-Irshad u guntanaysaa sidii ay ugu ururin lahaayeen gargaar degdeg ah walaalahaas dhibaataysan haddii aad doonayso inaad si toos ah ugu dhiibto waxa aad dirayso Al-Irshad fadlan kala soco shaashada masaajida aad geyn karto iyo canaawinta aad ku soo hagaajin karto labadaba diinteena wanaagsani waxa ay ina faraysaa in maalkeena ay xaq ku leeyihiin kuwa dhibaataysani والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم قفكو شلنكا ولبحو إساقا أيا هرمر سنيا نبي صلى الله عليه وآله وسلم وحاوليه إساقنا والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه الله سبحانه وتعالى waxa uu gargaar joogto ah u fidinaya adoonkiisa inta uu adoonkiisu walaalkiis gargaarkiisa uu ku jiro hadaba waxayna la gudbon in aynu fursadda ka faa'iideysano masaa'ibu qawmin 'inda qawmin fawaa'idu dad musiibadoodu waxa ay qaar kale u tahay faa'iido noqo kan ka faa'iideystay musiibada walaalkiis ku dhacday oo ka bixiyay musiibadaas isaguna ku helay ajarka alle iyo in ilaahay subhanahu wa ta'ala uu kurba min kurabi yawm al-qiyamah sida xadiidka la sheegayay uga badbaadiyo mar haddii uu kurbad ka fayday walaalkiis